السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستو آتافه دونيدا كجوكتان وإذن السلام السود وهذا كسود وهذا شبكة فرج.com وأدوغ براتين إن إدين سو قد بسو لغة إنجليشكا إيو علومتا إنجليشكا ICT بروغرامكا وآن دونينا إنا أمبلونا هاتي إلهي راهدو وجدد شبكة لو فروا إن بلشدا أفكا الصوماليا كو هذا الشاء لوغو ترجمه علومتا إنجليشكا إيو علميغا كمبيوترسكا ICT-ga dhammaantood iyo waliba mustaqbalku aan rajeynayno inaan ku soo kordhin doono kuwa kale oo badan si bilaashana afkooga hooyo ay ugu bartaan meel kastoo ay joogaan annagoo u bixinayna hab online haddii casharaanta qaarkood ay ku dhaafaan fadlan waxaad dib uga daawan kartaa adiga oo booqanaya barteena YouTube ku qoraya faraj.com kadibna subscribe saaro gambaleelkana furo si ay ku soo dhacaan waa hagaag maanta casharkeenu wuxuu yahay waa grammar waxaanu qaadan doonaa grammar base ah oo naxwo ah waxaan qaadan doonaa seven pronouns wax loo yaqaano todobada magacyeel ee ingiriisku wuxuu leeyahay todoba magacyeel todobada marka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo kala ah subjects iyo objects oo kala ah subjects waa horgalayaal objectsna waa gadaalgalayaal marka subjectsku jumlada waxay ka galaan xagga hore jumlada ingiriiska ah objectskuna waxay ka galaan xagga dambe I waa aniga you waa idinka ama adiga laba macno ay leedahay we waa inaga they waa iyaga he waa isaga she waa iyada itna waa wax ama shay markaasi waayahay haddaba objectsku me waa isla anigi you waa adiga ama idinkii us waa inaga them iyaga him isaga her iyada itna waa ito waxa loo isticmaalaa waxyaalaha maalaya aqalka waayahay I objectigooda muxuu noqonayaa waa me you-na waa you isma bedelayso sidoo kale we muxuu noqonayaa us buu noqonayaa they wuxuu noqonayaa objectigooda them he objectigooda muxuu noqonayaa him waayahay she objectigooda muxuu noqonayaa her itna waa it marka kuwani waa isla iyagii uune I waa anigi meena waa anigi una macnaha I jumlada xagga hore ay ka gashaa gadaalgalaheeduna me buu noqonayaa you-na waa you us waa inaga subjectigooda muxuu noqonayaa we them waa iyaga waayo subjectigooda muxuu noqonayaa they him waa isagi subjectigooda muxuu noqonayaa he herna subjectigooda muxuu noqonayaa she itna waa it وهاك sidoo kale waxaan baran doonaa noun yani noun waa isamkii af carabiga macnaha magac af ingiriiska marka la joogo magacu wuxuu noqdaa shan qaybood horta noun baan qeexi doonaa noun magacu is a word waa eray that kaasoo we anagu use aan u isticmaalayno for giving inaan siino a name magac to a person qof place goob or ama thing shay magac saasa la yiraahdaa haddaba magacu wuxuu u qaybsamaa shan qaybood ayuu si kala baxayaa oo number 1 proper noun waa magac khaas ah 2 common noun waa magac guud 3 collective noun waa magac la soo ururiyay magac walxeed 4 material noun magac walxeed weeyaan markaasi collective noun oo saddex isagu waa magac kooxeed magac yaani wada jir magac la wadaago weeyaan markaas material noun waa magac walxeed wixii aan bila aadan ahayn geed gaari lacag waxa soo dhan material nouns baa loo yaqaanaa 5 abstract noun magac sifeed yaani magac sifo sheegaya tusaale ahaan sida mugdinimo waxyaalo noocaasa waan baran doonaa mid kasta waan qeexi doonaa وهاجاك هذا بو حنقيحنا proper noun كمحو يهي proper noun كو حنقيحنا proper noun is the name ومقعة of a particular person قف باخاص أولي or أما thingy شيء أيام مركاسي سينينا ومقعة قف خاصة أما شيء خاصة تصالحان هدي أن جملة قرينو وامحي أدس أبابا is the capital city of Ethiopia أدس أبابا وعاصمة إثيوبيا وهي هلبا تصالح هلبات نيروبي is the capital city of Kenya نيروبي وعاصمة كينيا واضح marka magaalo kale oo Addis Ababa la yiraahdo miyaa jirta waa maya waa magac khaas ah Nairobi sidoo kale magac khaas ah dhamaan caasimadaha oo dhan waa magac cid u khaas ah markaasi
Jeddah is the capital city of Saudi Arabia. marka halka waxaad ka fahmaysaa magac kasta oo khaas ah af Ingiriiska naxwo ahaan maxaa loo yaqaanaa proper noun. meel kasta oo aad ku aragtid magac khaas ah maxaad u aqoonsanaysaa af Ingiriiska proper noun ayaad u aqoonsanaysaa markaas. afarta qaybood oo kalena mid ayaan u qeexi doonaa markaas insha Allah.